السلام عليكم ورحمة الله سود هذا ما أنت صاد أركيسان مقال كان رعد أركيسان أيام بل إنا وقت وحير سلف لقينه مقال كان أدو جدا نورتو ونيجي داهر على سوها وفرين دق يكسر قارتي حرمها ما تقوى وين مقالة مقدشو أمني جيدا سيد الشيء آد كل لغة مامرو ولي حرمت حرمنا قاسة وحوش شيء مقال كان داهر على السوق أسوأ لايف كجرو إنه فرينو قدري والدين بدن يولي بدن ديو كلو أو Soomaaliyeed waliba ku sugan gobolada hadii ay noqoto iyo waliba caasimada magaalada Muqdisho wuxuu sheegay daar cali soo yiri waxaan digniin halkaan ka diraya hadii ay joogto magaalada Jigjigo Hargeysa iyo waliba sidoo kale nawaaxiga magaalada Muqdisho waxaan kaga digaynaa uu yiri in ilmihiina hadii ay yihiin ilmo yar iyo waliba qaangaarabo in yaani ciyaalka iskuulka loo dirayo la ogaado waqtiga ay soo baxayaan iyo waqtiga ay soo laabanayaan maalmaha magaalada Muqdisho waliba aad macnaha looga caawinayo cabashada ugu weynna dadka ay ka soo gudbinayaan ay tahay in la sheegay inay soo baxeen dadka ganacsanaya xubnaha spare party-ga sidoo hadda sheegay waxaa la sheegay warar sugan oo yaani aad ugu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in magaalada Muqdisho la leeyahay magaalo waxay noqotay cabashadeeda aad u soo badanay maalmaha dambe dhaliisha ka imaanayso dawladda dhankeeda oo la leeyahay shacabkii ayaa macnaha intii la soo dhaxdagay magaaladoodii waliba haddana xubnahoodii laga ganacsanaya waxaa la sheegayaa gabdho iyo wiilal intii la yiri waa idin tahriibinaya oo wali waa idin wadaya kadib markii ay dhacday tahriibkii dhaxda laga baxay la waayay meeshii loo wadayna aan la geenin yani meel lagu ogyahay aysan jirin ayana taas fariin baan ka diri doonay marka hore waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkii gooni oo halka la fadhiyo waxaan jeclahay bal gooniyo bal inaan dhowr su'aal ka weydiiyo maadaama abu Soomaaliyeed aad tahay adiga laftirkaagana ay ka qabsatay arintan hadda ka hor dhibaato yani gabar adiga dhashay laftirkaaga in yani wala tahriibinaya hadda ka hor mar intii lagu yiri ay kugu dhacday xitaa murugteeda aad in badan yani waxa way laftirkaada ay kugu noqotay taariikh lama ilaabaan waxaan hadda arkaynaa marka magaalada Muqdisho oo leeyahay waxay noqotay magaalo dadkii ay wada sakhraansan yihiin ay wada u ordayaan mar waliba ay leeyihiin tahriib dhalinyartii Soomaaliyeed kuwa qaar la leeyahay guryahoodii iyo ku joogo markay banaanka u baxaan ayaa lala baxayaa oo xubnahoodii ayaa laga ganacsanaya waxaana lagu tumayaa xarunta xalane in badan ay ka imaanayaan dadkan waxaas oo dhan sameynaya horta waa maasanta aro barnaamijkan waa run ugu jira magaalada Muqdisho oo kusoo koray muddooyinka la soo dhaafay saddex bir ka hor waxaan arkay cunug yar oo la afduubanay bajaaj la gashay rabay bajaajka markii lagu tuurana dadkii aan ta arkeen marka horena xaaladda la socda ninka bajaaj la meesha istaajiyay ay ku soo yaaceen dhab waa la xiray xabsi hal dhigay ka dhacay degmadooda jir saldhig galbeed ayaa la geeyay jeclahay arinta marka magaalada Muqdisho qof qaangaar ama qof xogaa 10 jir ama qof 8 jir qof ka sii dhamaan oo la afduubanaya arinta waa arin kor ka socoto magaalada Muqdisho Garoowe waxa la yiraahdaa Boosaaso Gaalkacyo ilaa iyo Hargeyso niman waxa jiro oo barnaamij faafiyo qaarkood waxay ka shaqeeyaan arinta qaniisiin dadka in qaniisnimada la baro arinta qaar waxay ka shaqeeyaan waxyaabo illuminati loo yaqaano oo dadka markaasi calaamadaha shaytaanka waxaas la baro qaar waxay ka shaqeeyaan shiicada qaar waxay ka shaqeeyaan kaliya dadka in la baxo oo dadka la aruursado waxyaabo badan jiro oo markaas oo mashruuc badan jiro kala badan dadka mashruucyada loo soo diiwano dad Soomaaliyeed kugu dhaqan ama kugu diin ama dad kula af ah oo meel uga leexata aad garaneen marka waxaan leenahay magaalada Muqdisho aad ay barnaamijkan ugu soo bateen xirada xalana aad badan aad hoganayso dad badan oo la geliyay oo nolol gari lagu heena jirto oo cid isku raacatana jirin marka waxaan dhihi lahaa dadka halkaas ku sugan magaalada Muqdisho inay ka digtoonaadaan caruurta iyo dhibaatada ka iman karto أنا واحد على هذا كور أنا هذا مدة اللي أقبل اللي جوجو إن جودة اللي تهريب ولا قلنا ولا تهريبنا مال في عنا لو مرسينا بيلي بالعكس ولا جاب إحنا إلا لو جارسيو تونسيا وحال الليبي ممارس تونسيا لو جارسينا لكن الليبي ولا برسينا ومقفل لو جين ربع مركو عندي لا هل قد يبتون هذا دبعة طفرة بدنا جستو بدها الصومالية وحكى صعود وحل لجيسن كرم أهين بدا نكلي هذا عرب هذا ما سنتاي بس تقول يو حدا fariintan daahir cali soo gaartay xagee isleedahay way ka soo gaartay wuxuu sheegayaa fariintan inay biyo kama dhibcaan ay tahay ummadda Soomaaliyeedna aysan u qaadanin wax yaani waalid dayalsado wuxuu leeyahay fariintan hal laga gaarsiiyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabooyinka Soomaaliyeed bal aniga laftirkeyga markaan arkay su'aalo badan aan iska weydiiyay oo ah daahir cali soo fariintan xaguu ka heli karaa maxayna tahay fariintan haddii ay jirto dawladda dalka Soomaaliya dabcan dawladda federaalka Soomaaliya maxay wax uga qaban laadahay maxay wada tacaali laadahay yalla adiga xaggaaga maxay ku tahay arintan dawladdu inay ku baraarugto muhiim sababtoo ah dawladda hada maalmood cunug la xadar oo kale wala soo gudbiyo bajaajkii iyo ninkan way xiran yihiin arin fiican waa shaqadaas laakiin dadka shacabka ka shaqeeyaan dawladana ay wargeliyeen
arrintaas kale hala sameeyay ilaa naadka wiil iyo lix jir meelahaas oo kubad ku ciyaara banaanka degmada Xamarweyne laamiga dhexdiisa asoo ku ciyaarayo nin intuu imaado oo ninaci wax intuu u dhiibay oo gacanta ka qabsaday mid asaga ka weyn oo markaa 10 jir meelahaas ayaa ka dawartay كفقر عنق محكرته مركب ماشي نعيد من نسا فديه صح عنق كفقر سيدا عنق مركب عنق داور حلا وراد عنق محكرته وجيدنا ساله كل اسكرت يلا هلا عنق ولالك سو انا نقانا سيدا لا ورا صح يا ارض ماشي كتب مركب waxba kuma baraarugsanay dadka oo عنق ana kadab oo ku dhagamoogay inuu wato rabo ninkaas hadda waa 8 jir waxa way waa 2 sano ka hor markii lagu dayay barnaamijkaas hadda waa 8 jir dugsi oo dhigta marka waxa dareemaysaa in dhibaato fara badan inay ka jirto magaalada Muqdisho anaga wadanka waa ka maqanahay laakiin xogta inaan soo gudbino waa arrin muhiim ah fariinta laakiin daar cali soo loo diray oo dawladda aan loo diray daar cali soo waxyaabo fara badan loo diray daar cali soo xogo badan oo hela marka qaarna wax propaganda oo iska dara laakiin tan oo kale propaganda ma dhigi karno waa arrin serious oo lagu arkay Muqdisho marka fariinta soo gaartay waa arrin la dhigi karo in laga digtoonaada mar haddii carruurtii iyo wixii la iska xaday halka dadkuna haddii waa arrin muhiim ah xitaa door oo been sheego ama uu sheegin laakiin meeshu targetka uu aadiyay ayaa mid fiican ah oo dadka inay ka digtoonaadaan tahay mid kale askarta iyo waxyaabahan in dadka barnaamijka lagu wacyi geliyo lala socodsiyo moogiye dadka askarta meel ba ma joogi karto laakiin shacabkii hadda wiilkan daraad la afdubar rabay aan ku feejignaa oo aad u fiirnay u kurgalay kaas oo kale shacabkaas oo kale loo baahan yahay dadka bajaajleeda iyo waxyaabo la soo istaagay inay ka taxadaraan waxa arkaysa qof waxa lagu leeyahay marka laba qof qaadanaysa oo dhab bajaajka ku ridaaya afkana marayka gelinaya la soo dheesho ugu la tago marka xaalad halis ka jiro ilaahay umada badbaadiyo wadamada reer galbeedka iyo wadamo badan oo qandaraasyo watana way ku soo duuleen wadanka marka wadankii umadii waa iska nooshahay in adeeg email kale aadan ma yaqaan moogi xaalada halis ka jiro ninkii leeyahay arab aad baad u maasantahay gooniyow aniga markaan fiiriyay mashruucyadan hadda ka socda magaalada Muqdisho ani markaan fiiriyay waxa isdahay dadkii meelo badan baa laga soo galay waxa laga soo galay xagga dhaqanka diinta waxa laga soo galay xaqa macnaha yani waxa weeye hadii dadkii xubnood in laga ganacsado waxa laga soo galay in yani waxa weeye dadkii maanta waxbarashooyinkii haday noqoto dhan diin dhan maadi in xitaa qalqal laga geliyo hadda waxaad arkaysaa in leeyahay ilmaha waxbarashada aad ay iskuulada u baxayo ha laga warqabo saantooda meesha yani u baxayaan iyo waqtigii soo laabanayaan mar walba in la socdo waalidiintii marka wal isdhihi karaa shaqooyo macnaha shaqo waxa u soo baxday ah ilmihii in yani waqti walba ay ka warqabaan oo waliba saacad ilmihii ula socdaan mideeda kale ma la isdhihi karaa qalqal waxaa la wadaa oo loo abuuraya shacabka in yani xagga haddii ay noqoto waxbarashada dhanka diinta dhanka maadiga ayaa la leeyahay dadka in laga xanibaa la doonaya waa dhici kartaa marba horta qofkan hadduu qandaraas leeyahay oo lagu leeyahay ama qof ii keen kiliyahan kala baxa ama la leeyahay maxaa lahaa qofka waa iibsanayna oo dad kale ka iibsanayna reer galbeed kale ilmo inay iska korsadaan u baahan yihiin ilmo qaarkood ma laha marka waxyaabo badan ay jiro oo ilmaha la iska hadda aragti Yurbi Mareykan in la iska qaato ilmaha oo leeyahay qofkan ilmaha ma xafidi karo waxaad dareemaysaa ilmaha marka nolol free lagu korinayo oo markaas qofka xataa heer u gaalooba la gaarsiinayo marka diinta islaamka waa lagu soo duulay waa run meel walba ka jiraan hadda imaaraadka carabta oo kale tagaad koor aniga 2 oo foog meelahaas dhaqamada ka jira dhaqamo wanaagsan ma ah dadka magaalooyinka waaweyn jooga sida Dubai iyo Sharjah iyo Ajman iyo dhamaan maxaa la yiraahdaa Abu Dhabi iyo Musafax magaalo la yiraahdo Banyas magaalooyin badan ay jiraan magaalooyinkaas waxa way habeenkii la soo baxa kuleel waa wadanka shidaal ku jiro habeenkii la soo baxa markaas magaalada la aada anagoo kale xeebta aad jirnaa habeenkii 4 saac 5 saac markii la gaaro 8 saac 9 saac ka imaanaysa ilaa wadanka maalinta lama socon karo waa kuleel zaida marka waxaa arki jiray meel oo leeyahay beach club Ajman beach club meesha Hebelo club oo kalaabiye ka furan yihiin oo dad caraba iyo dad cadaan iyo badow iyo gaali balaa isugu imanayaan marka imaaraadka arkaysid hadda meeshan beach club lagu leeyahay waa hal meel meesha aan arkay laakiin waxa lagu leeyahay magaalada dhanba waxaa kalaabiyadaas ka wada furan mid kale waxaa jiro barnaamijyo oo live ah oo dumarka dhilooyinka ay ka ganacsi jirkooda Europe iyo Mareykan joogo ay barnaamijyo live ka soo galaan TV live ugu jiraan numberkeeda hoos ku qoray markaas oo ninka carabka ama qofkii rabo intuu numberkaas waco tigidhkeeda bixiyo imaaraadka imaanaysa markaas oo dawladdu mana 2 maalin 3 maalin isbuuc intuu rabo kadibna lacag oo siina way laabanaysaa barnaamijyada live TV da lagu soo daa marka wadankan waxa lagu wadan islaam waay marka waxyaabo badan oo khatar ku ah islaamka ayaa jiro wadamada carabta intaan ka arkay aniga meel wanaagsan ma ku soo arkay aad baad u maasantahay gooni ugu dambeyn xalanay waxaa la leeyahay xalanay dadka joogo yani waa dad maanta haddii ay noqoto ka qayb qaadanayo dhanka yani loolanka amniga dadka Soomaaliyeed laakiin waxaan aragnaa in yani xalanay ay noqotay meesha maanta yani waxa weeye dhaqan waliba Soomaaliyeed maanta ay ka sheeganayaan ummadda Soomaaliyeed in yani waxa laga faafinayo aad iyo aad sax u jeedid
وصح ان سيبركا في سارو ان حالنا ومال هلستيدا لورت لكن دوله فرماجه اسكو دayna kiciso tii xasha kooraysa isku dayna kiciso in inkastoo xasha waqtigiisii la dhisay meesha xalana